waxaan isku hagaajinaa isku toosinaa qorshaha iyo maalgelinta waxaan kula ka shaqeynaa horumarinta dhaqaalaha iyo aakhirku ah qiimeyn kormeer iyo diyaarintii natiijooyinka qorshaha ka soo baxay sidoo kale waxaan xiriirinaa mashaariicda deeqaha waddanka soo gala iyo sidii la soo afajin lahaa qorshaha qarankuna wuxuu ka kooban yahay oo ama samaystay dowladda federaalka iyo xubnaha kelmadda xubnaha ka ah waa laga fiican yahay sababta membership ma waa la wada leeyahay dowladda federaalka waa la wada leeyahay wax laga wada tirsan yahay macnaha wax lagu biiray ma wax la wada leeyahay marka dowladda federaalka guud ahaan ayaa iskala qorshahan markii aan sameynay halkan aan shiro ku qabanay galmudug baan ku qabanay Jubbaland koonfur galbeed iyo meel kasta intee karo qorshahan waa qorshaheena sagaalaad ilaa 62kii waa qorshihii ugu horeeyay 5 sano muddo 30 sano la sameeyay waana kii ugu horeeyay ku saleysan waxa loo yaqaan IPRSP ama yareynta saboolnimada afar tiir buu ka kooban yahay sanaanta amniga iyo cadaaladda horumarinta dhaqaalaha ama kobaca dhaqaalaha siyaasadda loo dhan yahay iyo arrimaha bulshada laakiin waxa kala jira 5 shay oo kale oo cross cutting loo yaqaan kuwaas oo kale ah arrimaha barakacayaasha qaxootiga arrimaha dhalinyarada arrimaha deegaanka arrimaha xuquuq insaanka arrimaha noocaas ayuu ka kooban yahay ayaa ku dhex jira cross cutting afarta qodob iyo shanta ku dhex jira mid kasta wuxuu leeyahay yoolal gaar ah yoolalkaasina waxay la jaan qaadayaan kuwa loo yaqaan SDGs ama Sustainable Development Goals adduunka oo isku raaceen 2030 isku soo duuduub qorshaha qaranka Puntland maanta waxa ku leedahay qorshe Puntland kaas laga soo dhex saaray galmudug ee samaystay saas oo kale kaas laga soo dhex saaray waddankan waxba laga fulin karo hay'adna wax ma keeni karto dawladna wax fulin karto aan qorshaha qaranka ku saleysnayn marka qorshaha qaranku waa buuggii waa diiwaankii waa guide-kii horumarinta iyo arrimaha bulshada waddanka dhaqaalaha waxyaalaha loo yaqaan socio economic iyo guud ahaan qorshaha qaranka Puntland markaa joogtid markaa qorshaha Puntland leedahay 5 sano waxa laga soo qoray oo asaas u ah qorshaha qaranka ee federaalka yaala wasaaradda qorsheynta yaala ma jiro dowlad goboleed Somaliland ku dar dowlad goboleed wax qorshaha ka badan keensan kara waxa bariyaan caado noqotay in la yiraahdo waxaasaanu qabanay waxaasaanu keenay oo ka baxsan qorshaha qaranka mana jiro mashruuc la iska fulin karo oo qorshaha qaranka baxsan sidaas oo kale waxaan bilownay in aan hubino waxa waddanka soo galaya anagoo aan fiirinayn gobol iyo lacag inta la eg tahay dhaqaalahaas leeyahay wax kale laakiin inaan hubino inaan waddankan la keenin lana soo gelin lana isticmaalana bixin wax aan ku qornayn qorshaha qaranka oo markaa ay wada leeyeen dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir kulli federaalka markii la sameeyay markii waxaan sameeynaa 73 wada tashi oo halkan ku jirto dhowr goor heerar kala duwan dawladda heer federaal dowladda federaalka golaha wasiirada oo dhan wasaaradda baa looga tashaday baarlamaanka la tashaday cadaaladda garsoorka la tashaday sidoo kale ururada bulshada iyo dhammaan qaybaha kala duwan Puntland intii baa laga sameeyay dowlad goboleedka sanasaas oo kale qorshahaas markaa waa qorshe isu dheelitiran wuxuuna ahaa shuruudda ugu weyn ee danacafiska waddanka geed socodka danacafiska waddanka haddii aanan sameynaan qorshaha qaranka oo IPRSP ah lana kama cafiyaan deynta intii hadda ka hor inta lana ka cafiyo wali waxbaan oo dhiman sababta waxay shuruudda ugu weyn baahayd inaan soo gudbino qorshaha qaranka markaan soo qornay soo diyaarino xereynay markaa waxaana lagu soo jawaab ka fiirin kartaan IMF iyo World Bank website-kooda wuxuu ahaa qorshe qaran oo ka weyn ama runtii dhaafay meesha ka filayeen Soomaaliya sababtaan waxa keenay wada tashiyadii aan ka soo bilownay degmooyinka iyo dhulkan tagi karno dhan ilaa heer federaal marka horta waxaan ka shaqeynaa waa traffic officer oo kale weey aan xagga kale wax asaas oo kale wasaaradda qorsheynta inta badan sidoo kale waxyaalaha kale oo aan qayb ka nahay waa qoondaynta maalgashiga miisaaniyadda waxa loo yaqaan capital investment-ga budget-ka dawladda
هذا budget كان سكيري هاي أنت بدنا على وجه بحياة حلو يقهر current cost أما حيالها المشاهرات كعيد ما ده حصل لكن عادها وزارة دا جانجويسة ما لا وحلا قلنا يسوح له قيبنا تازنا قيب كما شغال عن قبرنا هرمنت دقالها إنه وطن كان دقالنا كسر السنة هاي وحلو يقان بيرها يحولها يحولون أنت بدنا ودقالة بيو كسر السنة دقالها إنه مركانا وحوق وحسارنا إن دور قيبات شن priority ولا نهاي كورنتا دا energy تمرتا productive sector ka kalluunka xoolaha iyo beeraha infrastructure ka financial sector ka banking ka arrimahaas marka shan noocaas no priority kullina halkaas aan kala soo baxay wada tashiyadan dadka la yeelnay ayay ka soo baxeen markaan reer garow weydiinay maxaa idin ko weydiinaa labadii saddexdii waan reer gaalka ayuu tagnay qolka soo tagnay noo sheegeen waxyaalihii markaan isku celcelinay priority number 1 wadanka amniga marka laga yimaado waxyaalaha ugu waaweyn dadku sheegto waxa kamid ah tamarta oo kale koronto qaali ah wadanka meel walba haday koronto qaali tahay warshada lama samayn karo dhaqaalihii ma kobci karo koronto jaban ayaa asaas u noqoto waxyaalo fara badan la weydiiyay geedi socod baan galay wadanka oo deyn cafiskii deynta lagu cafinayay dhowr iyo 30 shuruudood oo ugu dambeeyay hadda waxaan ku jirnaa maanta oo shalay aan ka jawaabayna su'aalo waxa loo yaqaan ECF extended credit facility baa loo yaqaan waa dhameynay inta hore deyn cafiskaas marka uu soo dhamaado Soomaaliya waxay noqon doontaa wadanka kaliya haddii la idmo region ku nool Afrika baan oran karno waan deyn lagu lahayn badan waxay baalan ku yeelanayaa dhowr boqol milyan oo laga yaabo inay gaarto laakiin guud ahaan dhowrka bilyan oo dollar ku leeyahay hadda 67% lacagtaas wadamada deymaha bixiya Paris Club-ka waa naga cafiyeen kuwan hay'adaha bangiga adduunka IMF iyo World Bank oo inaga iska dhameynay oo kuma hadda deeqaha ay ka soo bilowdeen dhaqaale badan laga helo danafiskaas maxaan ka faa'iidnaa marka isbedelka reformka lagu sameeyay dawladda dhinaca dhaqaalaha waa ogtay mushaharkii ciidamada la bixinayay in la bixinayay hadda la bixiyo bil kasta dawladdiski iyo registrationkii iyo faraha laga qaaday ciidankii securitygiisa waxyaalo fara badan oo dhaqaalaha ku saabsan reformskaas oo uga faa'iideysanay tan labaad markii ugu horreysay waxaan helnaa AIDA money lacagta loo yaqaan AIDA World Bank lacagan arkaysaan ee koronaha budget support lagu bixinayo hadda damal caafimaad la keenay mashaariicdan fatahaadaha ayaxa waxa soo dhan waa lacagtii AIDA money AIDA loo yaqaan lacagtaas World Bank way African Development Bank saasoo kale waa jirta markii ugu horreysay gargaar inta la soo maro wasaaradda maaliyadda bangiga dhexe hay'adaha maaliyadda soo maraan wixii markaas ka bacdi la qaybinayana dawlad goboleed waxa la galay wax loo yaqaan subsidiary agreement heshiis dawlad goboleedkaasi qoondada la siiyay wuxuu ku baxay inay reporting keenayso laakiin la audit gareyn karo marka hadda hanti dhowr baa soo socda audit baa soo socda qolii saaxiibada dawlad goboleed ee xisaabaha badan soo qaatana hanti dhowrkaas oo soo socda marka waan loo baahan yahay xisaabtankaas guud ahaan arrimahaas socda wasaaradda qorsheynta qayb ka tahay tan kale waxa weeye maalgashiga wadanka maxaan rabnaa in la maalgeliyo priority maxaa inoo ah qorshaha qarankan kala soo baxnay waana ka shaqeynaa meelaha la maalgashan karo Puntland baa kow ka ah maadaama nabadgelyo fiican ka jirto oo arrimaha gaar ahaan arrimaha u baahan shirkadaha shaqeynaya yimaadaan oo dhulka shaqeeyaan joogaan isku soo duuduub wadankeena waxa jooga hay'ado fara badan oo ka badan 100 iyo dheeraad oo caalami ah NGOs ka loo yaqaan wasaaraddu way daba gashaa oo hubisa waxay ku shaqeynayaan inay qorshaha qaranka waafaqsan yihiin sidoo kale wadan kasta oo wadankeena jooga waxay leeyihiin wax loo yaqaan country strategy document ama istaraatiijiyada wadankooda ee Soomaaliya ay kaga shaqeynayaan horumarinta wasaaradda qorsheynta aan la saxaxdo wasaarad kale ma saxaxdo naga fiirina Switzerland baa next week fiirinayna saddexda soo socota waxay qaban doonaan wada shaqeynayaan sidoo kale hay'adaha UN-ka oo 22 CPD bay leeyihiin qolob magac bay ugu yeertaa saasoo kale mid kasta wasaaradda qorsheynta ayaa ka fiirisa waxay qabanayaan inay wixii qorshe qaranka ee dawlad goboleed dawladda federaalka ku wada heshiiyeen inay ku saabsan yihiin marka isku soo celceli arrimahaas aan qabanaa waxaan meelaha idinku taataabanaa meelaha su'aalaha iga weydiiyeen meelaha iga weydiiyeen marka idinka idin dhaafay marka waqti badan ma u baahanahay
runtii dhalinyarada inay ogaato xaqiiqda jirta waddanka iyo waxaan ka shaqaynay iyo waxa la qabto wasaaraddan waxay ku fiican tahay wasaarad kasta oo waddanka ka jirta waxay qabato waa la socota because annaga qabshii samaynay soo ma waxaa rabtaan weydiiya marka waan soo dhaweynayaa su-aashaa rabtaan weydiiya doorashooyin baa socda musharaxiin baa rag badan baa halka fadhiya gabdho musharaxiina arrimahaas waa lanu ka fara dhuudhuuban yahay laakiin waxaan rabaa inaan hawshaas ka hadallo haddaan ka hadli karo dib loo baahan yahay haddii kalena waxaan u daynaynaa hay-adahay khusayso finally wasaaradda qorsheyntu waxaa soo mara wasiiro fara badan maadaama caawa puntland joogno madaxweynaha puntland wasiirka qorsheyntu soo ahaa xildhibaan puntland oo soo ahaa marka caawa qoliin halka fadhiyaan raba inaa qiimaysaan wasiir saciid cabdullaahi deni qorsheyntii xildhibaankii iyo wasiir jamaal xasan qorsheyntii xildhibaanka taa laftigeeda xisaabta ku darsada oo idin sheegaya wuxuu qabtay aan waxaan qabto waa sheegay haddaa rabtaa inaa idin sheego wax qabtana waa idinku dari karaa laakiin taa laftigeeda su-aal way iga weydiin kartaa soo dhawaada halkaasaan ku joojinayaa su-aal kastaa rabtaan soo weydiiya waad idinka jawaabaya mahadsantii waxaan jeclahay intaynaan su-aalaha tooskaa gelin inaan wasiirka siiyo si uga jawaabo su-aalihii akhyaarta halkan ka hadashay ay weydiiyeen soo dhawo saacad wasiir mahadsantihiin si furan baan u wada hadlaynaa horta brotocoolka iyo arrimahaas xoogaa waa iska yaraynaynaa waxaan rabaa inaan si furan oo waxba aan qarinayn ana wax qarinaya laakiin aan macnaha waxba afgabaadsanan aan uga jawaabo su-aalaha qaarkood kow su-aasha lagu soo celceliyey waa raaligelin laga bixiyey waxyaalihii halka dhacay horta waa mahadsantihiin laakiin anugu idinka waxba idima haysto anugu reer shacabka reer Garowe iyo reer Nugaal midna waxba ma haysto ma imaadin caawa halkan haddii wax jiri lahayn gootaa kun iyo samaada waad mahadsantihiin aad iyo aad mahadsantihiin waana sheegay waxa kan wax magaalo iyo deegaan iyo reerba ah ma waxaana wax reeman anugu qawlaysato u aqaan iyagu laakiin wax kale loo yaqaan dadka halka u yaqaanin ay sameeyeen nimankaayna waxaan isku haynaa wadiin sheega hadaa rabtaan su-aashaa way weydiin kartaan wadiin sharaxaya waxaan isku haynaa marka laakiin runtii waxaan rabaa inaan idin mahadnaqo reer Garowe soo dhawaynta diiran dadka reer Garowe waa kuwan controlka ma kuwan wey waa idin mahadnaqaya marka aad iyo aad u mahadsantihiin su-aalaha marka haddaan galo su-aalo badan ma ahan laakiin perception bay ku salaysnaayeen arrinta Qatar iyo Turki qadaran ku bilaabo qadar waxay keentay waddanka 100 goor baan la weydiiyey gobolada qaar baa gelisaan baa lacagta horta qadar waxay keentay oo aan anaga saxaxay anaa wasaxay 200 milyan baa 200 milyan 120 milyan waxa infrastructure waxyaalaha kaabayaasha wadooyin baa ahayd iyo inta kale ahayd wasaarado ay ka mid tahay wasaaradda qorsheynta ay ka mid tahay xarun weyn oo xarunta xisbiga ahaan jirtay federaalka oo ra'iisul wasaaraha loo dhisayay arrimo noocaas labada dowlad goboleed ee gobolka Banaadir ku xiga ayaa lacagtii la geliyay tii wadooyinka sababta loo geliyay markaan idin sharaxo sababta loo geliyay waxay ahayd labada dowlad goboleed ma laha dekado iyo airport ay ka dhaxlaan sida Puntland ama Soomaaliya ama Jubbaland oo kale ay ka dhaxlaan dowladii hore ee Soomaaliya dekad Boosaaso Berbera Kismaayo ma laha airport caalamiyan ma laha waa laba gobol oo wax soo saar badan leh labada shabeelle gaar ahaan wax soo saarkooda iyo meel kasta wax ku dhoofinaya waxa dekad ugu dhow dekada magaalada Muqdisho haddii khudaar laga soo qaado Afgooye ama dhinacan Jowhari laga keeno wadada hadda aragteen cidii aragtay baa aragtay wadada mooska waa aragteen suu calaamadaha iyo nabarada ku yaal xal ma keeni karo beeraha waxba laga soo goyn karo dad baa dameer ku soo qaajay shabaab ayaga naftu keen marka waxaan go'aansanay dawladahan lacagtuna waa yar tahay dhaqaalihii waddankana kor u qaadnaa rabnaa dadka Soomaaliyeed dowlad goboleedana inay isdabiraan oo meel wax ka soo galaan baan rabnay sababtaas horta loo siiyay go'aan aan qaadanay baa ahayd federaalka qaadan lama siin Galmudug lama siin Jubbaland lama siin Puntland maxaa laga always reer Puntland su'aasha dadku weydiiyaan way
puntland waxaa loo baahay marka inay dib u fiiriyaan maxaa puntland marka la yidhaahdo awood qaybsiga ama kheyraad qaybsiga puntland sheerkay hadda hesho maxaa sabab u ah horta number 2 way waddanka marka Soomaaliya laga yimaado goboladan ka hadlay waa number 2 muddana waa ahayd saa la socotaan 2014kii waddanka waxa laga qabtay qiyaas tirakoob PES waxa loo yaqaan 2014kii wasaaradda qorsheynta qabatay wasiir waxa ka ah Said Cabdullaahi Dani waxa kaliya qabtay way soo wada Said Cabdullaahi Dani ayaa wasiirka qorsheynta Soomaaliya 2014kii isaga ayaana ku saxeexan maanta waad ka heli kartaa wasaaradda qorsheynta isaga ku saxeexan oo saxeexay qoondada maanta Puntland ka caawinayso iyo waxay tabanayso nasiib wanaag waa jooga su'aasha boqol goor ma codsaday in la weydiiyo meel fagaara Said uu ka warwareegay su'aasha in la weydiiyo una codsaday in la weydiiyo runta waa idin hayna documentigi online way nabad yaala population estimate-kii survey estimate-kii la sameeyay 2014 dowladda Cabdiwali Sheekh Ali oo marka ka joojiyay xafladii maalintii markuu ogaaday Said baa sameeyay kuna saxeex horta wixii idan ka maqan Said baa weydiinaysaa anagu documentiga buugaas meeshaan ugu nimi 2014 markii la sameeyayna markii new deal ka socday ahayd qiyaastaas lagu qaatay saasaan loo qiimay qorshe qaranka ku xigay saas loo sameeyay kana wadadii u raacay laakiin hal mid baan ku heliyo sameeyay Soomaaliya ugu heli maalintii ugu horeysay baarlamaanka tagay aan ka hadlayay inaan dib ugu noqono sharciga statisticada waxa aan sheegay oo baarlamaanka sheegay ku arki doontaan inaan loo qaban Soomaalida wax meesha ku qoran estimationka oo waxba loogu qaybin dadka Soomaaliyeed hadii wax loo qaybinayo tirko sax la weydiyo laakiin tan aan loo maalintii aan joojin horta waxa loogu qaybin laakiin waa number good oo Said nooga tagay taas waa taas tan labaad su'aashii ahayd waa isku midkiin farqiga idin dhaxaya oo Cabdiraxmaan weydiinay farqiga idin dhaxaya maxay idinkana aan qiimeysana fiicnaa laba xildhibaan laba nool maadeera dhinaca kale laba Puntland laba wasiir qorsheyn farqiga noo dhaxay waxa weeye meeshaas xafiis ma lahayn waxna ma online waraaqana lagama dhaxlin aan ahayn baalka tirakoobkaas mashruuc meel ka fuleen aanu ma arag mana la helayo waddanka laga soo heli maayo qof reer Puntland oo professional shaqo oo ka siiyana ma jirto ama meel ka shaqeeya hay'ad deegaan ka soo jeeda oo mashruuc ka fulisay wasaaradda qorsheynta dhexdeeda la fulisay ma jirto dad Soomaaliyeed oo ka manafacaaday intuu joogeen ma jirto inta kale idinka qiimeyn karaan وإذن لو ذا كرا فاني وحوجاي مركز اللي يراهدو performance وزارة دتك هو قانون تبدأ وزارة الصومالية جوانت وزارة قرشين تجوا وزارة دو حيث سمي سو كفر عامي هاي الاستاتستيك القرن كون ملح بنا وقتين أنا كعرر إن بس أو كلا دعوة حيث يسمي إنه وزير كان وحيا سمي وتركوب كلا سمي وملح بنا عنيني ضد مركز بورد وحكومة ضد professionals حكومة نقدر بنت لنا أنا كexecutive director general لابو قولها دقالها قرنك وما غشنا الملاينايا قولها دقالها قرنك سجال قفك كومية سجال حمنود مد ونجتي الشقة له هلا لجزارة السودان بالنقطة لكن سدد دي كله وجوجان سدد قف PhD كويس دقالها أقويها هنا وصوت ديارية وحياة بدنا نقول الشقية هذا بشيء آخر كذا صوب بندقي دونا أنتي دراسة وين ويسفرين دونا سنة صعد وزارة قرشين تحسميسي وحكى سلوك كله صعدة ديرين أنت مالك الشيء وضنك حياة فربنا ليس كواديري هاي دوكومنتي قصوب حياة كهلا عقبت كي فرق ولا حياة ويروح وين of course ندير وحاس أنا ما حاس كلمين لكن عقبت مركز نقطة سعيد أنو بس بانو هاي أكاد حلا وزارة دويا بسنا وحاجة ودين إنسان هالكاس وجرا سؤالها ودين إنسان وحن جعلنا لها أنت أنا بنت لان كتجن أنت مدحنا كيها أنا أنت أديب سلفيرو وأنت أما apology كبحيو ويروى كحم هاي خلت كان سمي أقول درمي كاهد فهم درمي كاهد ولا كعبي كاهد ما قرنا إنه رأي جرين كسي Soomaali ده شغلة بريء قاعد عادي أما و سوجي يسيد الله سحلا سؤال شكله
dhinaca khayraadka cabdifataax su-aashiisii khayraadka sida loo qaybsadaa dowladda federaalka waa la tuhumaa waa sax xaq oo leedana tuhuntaan horta marka deeq waddanka imanayso kaba soo qaada Sweden baad waxaa rabtaa inaad Soomaaliya waxbarashada aad lacag geliso $10 milyan tusaale ahaan kow intaan nala soo xirin waxay fiirinayaan qorshaha qaranka waxbarashada qaybta arrimaha bulshada waxbarashada haddana waxay fiirinayaan wasaaradda waxbarashada federaalka istiraatiijiyadeeda ay samaysatay taas of course goboladu la sameeyeen iyaga marka xog haya oo ku saleeyay okay gabdhaha kaliya lacagta waxbarashada gabdhaha kaliya gelinayna ay noo yimaadaan concept note kan loo soo diray loo yaqaan waa fiirina waxa kuna okay waa ku jirta qorshaha qaranka oo loo gol yahay shaqo ma abuuraysa saboolnimada ma yaraanaysa su'aalo noocaas aan ka fiirin ha ma tahay waxaan u gudbinaa wasaaradda waxbarashada aan u gudbinaa kala tasho dowlad goboleedii iyo dadkii kala shaqeeyay waxbarashada deeqda noo timi waxay xoogga saaraysaa gabdhaha waxbarashada tusaalahan hadday soo jeediyaan wax kale aan u baahnayn admaandooda lacag waxaan celinay reer miyiga waxbarashada reer miyiga oo kale emergency-ga weliba waxaan ku nidhi lama baahna waxaad noogu beddeshaan farsamada gacanta meelahaas oo kale tale waa ka dhiiban karnaa laakiin marka saas oo kale gabdhaha wax la baraya marka horaan isaga soo gudbin taas markay timaado wasaaradda waxbarashada iyadaa markaa la soo xirto wasaaradda waxbarashada dowlad goboleed puntland halkaas ka soo gelaysaa waad la socotaan bari dhexaas markii goodax joogay doodo badan baa dhex maray hadda waa laga heshiiyey laakiin anu ma qaba in aada loo heshiiyey wax badan baa weli la isu mujaamalaynaya arrimo badan baa jira laakiin khayr way mar haddii hadda sidaa lagu wada shaqaynayo marka horta deeqdu saas ku socotaa saasaynu ku timaada annagu maxaan ku leenahay marka waxaan leenahay marka sanad ama 6 bilood shaqaynayso inaan waxa loo yaqaano M&E waa taqaanay soo monitoring evaluation aan ku sameeyno wadankii ama hay'adii marka ay qaadatay wasaaradda waxbarashadu annagu hay'adaha uma doorno shaqada la siinayo iyaga iyo doonarka ku heshiya ama wasaaradda keensata ama suun baa looga shaqeeya ama waa la soo xayeysiiyaa oo markaas tartan ba ku helo qolada mashruuca la fulinaysa dawladda ama haddii dawladdu soo fulinayso ayaan waxaan M&E ku sameynaa maxaa ka hirgal maanta Soomaaliya 18 mashruuc baa ka socda toddobaadkii hore madaan fiirino daytada hayn mashruuc wuxuu noqon karaa $10,000 mid wuxuu noqon karaa $10 milyan laakiin isku dar kun iyo intaasoo mashruuc ayaa ID-ka numbers la wadan ka socda hadii la fiiriyo inta Puntland ka socota you'll be surprised wax badan baa arki doontaa inta ka socota Puntland number 2 way Soomaaliya iyada ku xigta laakiin numberkaas hoos buu soconayaa haddii waxyaalaha qaarkood oo sanadaha dhacaya aan la joojin oo ay ka mid yihiin inaan shirarka laga qayb galin dowladda federaalka iyo deeq-bixiyaasha isugu yimaadaan oo xamar la tegin miiska dooda la fariisan khayraadka waddanka kalluumaysiga oo kale wasiir baa shaqada looga qaaday maxaa Zoom meeting u gashay wali wasaaradda shaqo male wasiir male beerihii haddaan la iman la soo fariisan ciidamadii Soomaaliya maanta amniga waddanka yar kala ka taagan nin kala ka taagan oo ka tirsan ciidan kale gorgor ama qashan Soomaaliya waa kala ka taagan xagga soo dir akhir soo dir halka saas ninka waa ciidanka gorgor buu ka tirsan yahay reer Puntland laakiin ciidanka qaran ka tirsan yahay dowladda Puntland intay fariisatay qayb kama qaadan ciidamada dhismaha ciidamada qaran maasanta kama qayb qaadan kuwa kale iskoorshibada la siinay Turkiga loo diray maxaa loo qayb qaadan sababta maxay ma isweydiiseen sababta magaca Soomaaliya waxa lagu soo qaadayo looga qayb qaadan waayo shirka loo tagay maxaa loo joojiyay shaqada dastuurka laga waday wasaaradda dastuurka shaqada waday Puntland baa tiri hanoo imaanna waa la joojiyay waa dastuurkii hooyadii federaalka waxaan rabnay in laga hadlo fiscal federalism-ka lagama hadlin waa la joojiyo waxa la hanoo imaanin wasaaradda maaliyadda cafiska 10 goor baa shirka laga joojiyay aniga idin la hadlayo qorshaha qaranka dhamaystirkiisa 2 maalmood oo deadline ka dhiman tahay ayaa Allah iyo baryo ku fulin qaybta Puntland marka horta tuhunka la istuhmaayo halkaas sal ku haya sababtoo ay markaa meeshii joogin imanayn dadkii la fariisanayn qayb sheerkaaga aadan qaadanayn shirkii imanayn wax kasta maqasho iska rumaysanaysa marka horta waxaan ka codsanayaa madaxda iyo dadka shacabka reer Puntland inay walaalahooda Soomaaliya wixii magaca dawladda Soomaaliya lagu keeno inay sheerkooda ka qaaraadsadaan inaan hadlin hooyada qadis laakiin marka loo diido shaqaale inay shirar ka soo qayb galaan xamar diyaada soo raacaan loo diido wasiirada inay yimaadaan loo diido ciidanka laga qayb qaato la diido shidaalka waddanka la soo saaro
laga qayb qaadan xubnihii Ocean Petroleum Authority khayraadkii kalluumaysiga xeebta ugu dheer gobolada marka Puntland baa la diiday la joojiyay waxa soo dhan marka la diido haddayna cabataan ma soo sax ma haddaadan miiska fadhiin qola kala qorsheynaysa qola kala sad bursanaysa qola kala wax samaynaysa tuunkuna badanaya iska sheego marka horta saa la socdo waxa ay weydiisay alftaax ku jirtay wadada Ceel Daahir Cergaabo waa sax horta wadada Ceel Daahir Cergaabo dawladda federaalka contribution ka geysatay contribution ka geysana laakiin Puntland baan soo maray markii Cabduuli gaas joogay bay ahayd aniga kula hadlaya la xiriir gudiga gacanta ku haya wadada gudiga waxay ugu yiraahdeen iyahow waa sax oo baahanahay hay waxaan ku yeedhin qaybtaas jirta wasiirka hore maaliyadda Caarshe waqti Cabdullaahi maxamed Cabduuli gaas ayaa la xiriirnay Puntland baa loo sameeyay contribution-kii way heshay qayb ka mid qaybtii kalena iyadoo pipeline ku jirta doorasho laga soo socota horta waa geenay waxaan dawladda federaalka intaan soo istaagin uu sheegan kar mas'uuliyadna saaran way kuma faani karo laakiin qaybteeda waa geenay way ogyihiin gudiga waana weydiin kartaa wasaaradda maaliyadda Puntland waa keeri kartaa sidaas la mid ah waxyaalaha aanu deeqaha wadamada ka keeno Puntland baan wada keenaa xaq bay leeyihiin gobolka Sanaag baan hadda ka yimi Highland waxyaalo fara badan waan ognahay annagoo soo gudbinay in laga fuliyo Puntland oo dhan ayaan ognahay si loo fulin lahaa loo fulin xoogaal baan ahay wasiirka qorsheynta yaa trust me waxaan ogahay mashaariic aan soo dirnay keenay la gacan bidixeeyay kuwa kale oo badan oo pipeline ku soo jiray oo si kale loo baalkay marka horta ogaada oo haddii qof mas'uuliyad lagu dhiibo wax lagu soo dhiibo dadka gaarsii oo si kale u farsamayso waa la helaya xogta documentation-kiina waa la hayaa marka gobolada arkaysa haday Gardafin noqon lahayd iyo haday noqon lahayd oo daway mudug inta u dhaxaysa ilaamiya Sool iyo Cayn iyo Sanaag iyo Highland dhulkaas oo dhan noqon lahayd mashruuc kasta degmo kasta loo qoonday gobolka soo loo qoonday waa idin soo daabici kara wasaaradda qorsheynta tagtaan waa la idin daabici karaa wax kasta Puntland soo aad qofka haya telefoonkiisa magaciisa wixii lagu bixiyay sida loo bixiyay taariikh contract la qaatay hay'adda bixisay lacagta intee ahayd inta la bixiyay inta dhiman kulli waa hayna marka horta waxyaalaha qaarkood la isma sheegi karo saa loo socdo marka xogta ninku u baahan waa la wadaagi kara information-ka wansiinaya wala soo xiriir karta degmo hebla gobol hebel maxaa la geeyay yaa geeyay taana saa soo socono tan kale waxyaalaha saaxiibada iskaga darsanaya nimanka odayaasha control-ka ka shaqeeya ama airport-ka dadka marka la soo degaayo khashqasha ama marka magaalada soo galaayo كل يوم ملنا بنتلان لبا كنترول كليه دحدا ما بنتلان واسك سو مري دهربان كيمي دولكا سو ما سو مري كنترول كان حكلا كل markii horena waa yimi iska wareedan meelahan aan jooga galka ay tagaysa control ka checkpoint marka qolada deegaankan waa joogtaa magaalada sharafta aan ilaalino control kana balan dib ugu noqon arintu ma aha Puntland control ka ma aha laga bax magaalada soo go'ay laga ilaaliyo kaliya taasina waa taas waxyaalaha maxaa isku haynaa marka aniga iyo team kalka jooga su'aashaas aad baan ka guuxaysa oo ogahay ana idin si qadimaya ma aha inaan rag isku haya arrimo kale wax simple aan isku haynaa laba qodob baan ugu soo koobaya qodobka koowaad horta wasaaradda qorsheynta wasaaradda hawl badan qorshe qaranka aysa maalgashi oo soo maraya dhaqaale oo soo maraya waa lagu tuhmaya rag saaxiibada halka yimi waxa kaliya daarinta fiiriya waan la duubaya waxa kaliya igala soo xiriira ama igala soo xiriiri jiray intaan isku fiicnay mashaariic iyo contractyo qandaraasyo iyo qandaraaska qaadanaya ya qandaraaska la siinaya ya qandaraaska bixinaya horumarka Puntland laga lama soo hadlin waxbarashada Puntland laga lama soo hadlin caafimaadka lama soo hadlin qandaraasyo contract laga hadlo ko labo qof shaqo la geenayo dan shakhsi qof family waliba ma aha qof professional ninkaas PhD asna gabadhaas dhakhtarada waxaan ra shaqeynaysiis wiilkayga gabadhayda tigay habareertay xaaskayga shaqaysi haday sii weydo oo kala dhimaneen horta labada qodob oo dhinacaas ah baa nimankaas walina ma baran baan maleen anu lacagna ma bixiyo
qandaraasna ma bixiyo lamana handadi karo marka waan u sheegay fal haddaa cid ka taqaanin u sheegay sidaas iska ahaanay saasaan ku dhammaysanayn arrimahaas way qayb mid baa taas qaybka wax dhaqaale ku saabsan qodobka labaad waa aragtida siyaasadda siyaasad dhow oo ku saabsan doorashadan keliya ayuu ka howlgalaya doorashadan hadda dhacaysa waddanka keliya siyaasadoodu waa intaa keliya siyaasad kama laha gobollada ka maqan Puntland sanaa oo kale siyaasad kama laha waddanka sidii ciidankaas oo kale loogu dari lahaa long term siyaasaddiisa istaraatiijiyad kama laha amniga siyaasad kama laha Soomaaliya bas sidii caalamka arrimaha dibadda waddanka si loo xoojin lahaa siyaasad kama laha dhaqaalaha waddanka siyaasaddu waxa weeye keliya kursiga xamar iyo baarlamaanka kuraasta hareeraha iyo aqalka sare iyo waxa si loo dhici lahaa intaa keliya qodobkaana wax la aqbali karo maaha personally xildhibaan baan hadda ahay xubintii beesheeda inaan ku soo noqdaan rabaa laakiin sida ka socota waddanka meelo badan Puntland keliya maaha meelo badan ka socota gacmo-gacmeyn badan baa jirta gacmo-gacmeyntaa jirta dani walba waa tabartiisa nin iska daaya nin ka dagaalama iyo nin la iska dardaro marka horta odayaasha taa laftigeedana inaan isku soo degdegin odaweyna xoogaal haddii lagu soo degdego ceeb baa looga dhacaya marka taa laftigeeda aan kala wareegno intaan kala wareegi karaan kala wareegno horta labada qodob wey siyaasaddan gaaban ee dhow ee hadda iyo dhaqaale tan dhaqaalaha horaan u kala quusanay laakiin weli waxbaa jira tan siyaasaddan daba iska dhammaan doonta marka horta intaas weeye wax bayska ah saa ula socdo arrimaha halkaasaan kusoo koobaya su'aalo badan aan soo wadeen oo idinka jawaabay marka waa maasiti